عبد المجيد هذه هذا وما سنتهاي وهذه السلام يا أديك أنت كدب سيدا أوتري دل كصوماليا ويان دمردم بدل محن كرادا دباتوين بدل صوم مري لكن دي بصو كبنا يا أيو أها مدة بمال أيو صوم مري مدة دجال سكية أيو كسو جري سجاشن كي إلى لبدي يكون إلى لبدي يكون إلى لبي طبعا كنا الدولة كمل جارة أيو كسو جري سيدي سنة قد بيسي لما كنا لبي طبعا كي كده بين الدولة جبهة وحرة وكمل جارة هين ورسمي أي دلك كجرتي أنت أنا دلك الثلاثي ساعات عندي صومالي أي أدورته أما وديبته أي سوى هيسي أنا لما كنا لبي طبعا كي أي دورتي مدعوينها جمهورية لما كنا تطبيق طبعا أيان حلك كدقي كدمر كدتك أي دورتين مدعوين محمد عبد الله فرماجو سيدا عادي جاهد وحال السوقيين مدحونو تارب كيسادو دماده دورش inay dhacdo hadii isaga dib loo doorto iyo hadii madaxweyne kala la doortaba kadibna halka dawladeeni nisbeedu uu ka sii socdo nasiib darro sidii la rabay ama sidii lagu ballamay baryahan dambe waxuma yaalaan ninka saaxiibkeena ahay oo madaxweynaha dalkan ka noqday welina ka ah madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo tiimkiisu dawladnimada Soomaaliya wadadii ay ku socotay kuma wadaan wadayar xogaa yar ka dib badan sidan dareemayno ayay ku wadaan marka guud ahaan dalku uu soo fiicnaa mudooyinka la soo dhaafo dhan aadna waan ugu kalsoonahay haddana uu fiicnaanayaa laakiin wuxuu meesha hadda sida uu yahay uu ka sii fiicnaan karay ayaan qabnaa dadaal badanna waa socdaan welina rajabeel ma jiro laakiin baryahan dambe ma qurux badna fafaaluhu ma fiicna sida ay wax ku socdaan waayahay madaxweyne waxaa jirta oo aan ognahay in dawlad goboleedyada iyo dawladda dhexe ee dalka ay heshiis ka gaareen arrimaha doorashooyinka dalka bal ka waran mowqifkaaga ka xasan sheekh ahaan heshiiskaasi doorashooyinka laga gaaray dabcan heshiisku heshiis muxuu ahaay danta ku jirtay ahayd dabcan meeshii la soo maray iyo wadadii loo soo maray iyo heshiiskaasi sidoo ku yimid iyo dib ugu laaban maayo dadka Soomaaliyeed waa ka daragsan yihiin laakiin waxaan rabaa oo kaliya inaan sheego dawladdan waayahay ay jirtay oo 4 sano hadda u sii dhamaanayso sideedaba hal shay ku caanbaxday waxay ahayday dawladnimadu waa qaanuun iyo nidaam iyo dastuur la dhowro oo lagu dhaqmo waaye dawladdan sideedaba waxay ku caanbaxday muddadii ay jirtay inaan dastuurka la ixtiraamin inaan qawaaniinta dalka ka jirtay inaan la dhowrin in maxaan ku raadaay dadka madaxda iyo mas'uuliyiinta muxuu ahay mar walba sida ay rabaan ay wax u dhaqaan oo sida ay rabaan ay wax yeelaan aanay qaanuunka iyo dastuurka aanay ku dhaqmin marka dhibaatada jirta waa midaas soo jireenka tii u baahdana si socota heshiiskii dawlad goboleedyada iyo dawladda federaalka ay wada galeen dawladda federaalka ah jibisay waxayna ku jibisay qawaaniinta dalka ka jirto heshiis oo ah laakiin heshiisku macnaheedu ma qawaaniinta dalka ka jirto dhan sida dalkan sidiisa hal mabda oo lagu shaqeeyo wuxuu yahay wixii qaanuun jira oo dalka ka jiray oo ka jirana in qaanuunka la ixtiraamo dawlad soo kacayso dhismaysan hay wixii naga kala dhiman oo ma qaanuunku aanu meel qaarkood kala daloola ama gaabis u ka yahayna in laga heshiiyo heshiiska marka berdhow dacsidaasay ahayd nidaamkii doorashooyinka wixii oo dalkan u dhameystirneen heshiisa laga gaaray nasiib darro heshiiska muxuu dawladdan ay ku tumatay haddana wali ku sii tumanaysaa waa midaas midda keenaysa walwalka iyo muxuu ahay cabsida laga qabaay sida ay wax u socdaan inaanay sax ahayn aanay hagaagsaneyn waa gartay dawlad waladeeda qaar waxaan ognahay iyo dawladda dhexeba waxa ay magacaabeen guddiyo ka shaqeeya arrimaha doorashooyinka dalka walaa xoogana laga muujiyay guddigaas iyo maxaad ku dhex aragteen mowqifka ku aadanna waa maxay dawlad goboleedyaha weli dhiman oo guddiyadaas aan magacaabin bal sideed u aragtaa madaxweyne maya meesha dawlad goboleedyaan guddi magacaabin ma aha meesha sabtu ay ka qurubsan tahay waxay tahay haddana bilowgii horena aan sheegay dawladdaani qawaaniinteed ay laadahay wixii ayada ku aadanaayo dhamay khaladay dibay ula dhacday wax kasto ay suubisana waa wax maxaan ku raadayay qaanuunka ka soo horjeedo oo diidan yahay مثلا dalkan qawaaniintiisa si cad ay u qeexaysaa in ciidamada qalabka sida ee amniga ka mas'uulka dalka nooc kasta ha ahaadaan inaanay siyaasadda ka shaqayn karin siyaasadana ay ka madax bannaan yihiin sidoodaba oo ay mas'uuliyad gaar ah
وأمنية إيو مصالح الأمة إيو هانتيدو إيو شرافتو إيو كرامة الدلك إنه إلاليات أي وحل سارين سياسة إنه تحمل معكم مسار مشكلة وين جرت الدولة دايون وحل كرواي كداية أمنية السياسة دين إنسان كداية هذا وحي أي كانان إنه يدهان يعني أمنية وحا معمولة يبع عيدك وحن لها دورشة السياسة ده وحا معمولة عيدك يا معمولة قانون كسعاد وشيء عيدا ماذا كما قيب كل كلام سياسة ده قانون كسعاد وشيء شقالة ريد كدولة ده كما قيب كل كلام سياسة ده دولة ده لنا وحي ربطها عيدا مدي أمنية شقالي دولة ده قاسمياش وزارتها وزير ذي إنه دورشة الأساس كعنت أنت أولا قلان أي أيهم معمولان مدحوينون حقو فريستو يراهي أساس الربا حقنا أساس الغير كاسنا أساس اللي كاسنا هالإريو كاسنا هالسود ويو هذا ماشي صرت أي كقولته ماشي دول قبل ماشي قديدا وحنا مجعابين دورشة مقبن كران وإحنا لو ما درسنا كرو دول قبل جدو ولي بهنا وابدي رجلنا أنا نصام مجعاب لأن ماشي وحلو وضع وماشي مال وحلو قدر سكره وقد أنت الله سو مجعود وضع الشقينا أي كسر سعته مثل ما أخذ marka aad xagga ma jirto aad xaggana jirta filla Soomaaliya iyo dadka jooga iyo xukuumadooda iyo wasiiradooda iyo ciidamadooda amniga awala ciidamada amniga hore loogu cayaaro la siyaasadeey haddana siyaasadii lagu sii cayaaruha marka niyo meesha ay sartu ka qurusantahay waa meeshaas ma aha dawlad goboleedyada waa gartay madaxweyne ka waran marka hadii dawladda Soomaaliya ay ku adkaysato gudiyadan ay magacawday inay ka shaqeeyaan doorashooyinka dalka ما وامحي مركا تلابدا aad qaadi doontaan muxuu yahay qorshaha xilligan idin degsan dawladdan iyo madaxdeeda oo madaxweynuhu ugu weyn yahay oo maxaan ku yiraahdaa ra'iisul wasaaruhu ku xigo oo maxaan ku yiraahdaa golaha wasiirada iyo ragooda ay ku xigaan waxay dawlad ku yihiin waa qaanuunka waa dastuurka iyo shuruucda kale ee dalka ka jira hadii dastuurka iyo shuruucda dalka ka jira aanay ku dhaqmaynin oo aanay u hoggaansamaynin dawlad madax ma aha dalku dawladda ka jirta laakiin ayagu madax ma noqonayaan waxay madax ku yihiin qawaaniintay madax ku yihiin qawaaniinta dhowraan ka karilaan ay waxaan la daba joogno waa intaas rajaan ka soo qabnay intaas wali waxaan rabnaa inaan cod dheer ugu sheegno dhaano wareedahaya qawaaniintaana shalal ugu doortay kana dalka ku xukunta awoodaadu waa intan waxaana ku banaan waxaana ka reeban maxuu kara ku dhaqan laakiin hadii sida hadda ay ku socdaan ay rabaan inay ku sii socdaan laga ma yeelayo waa ku sheegaya laga ma yeelayo marna ma dhacayso sida hadda ay wax u qaabqaabeeyeen inay doorasho inta u dhacdo wiilashooda askarta ay dadka inta afduubaan oo xildhibaanada liisa la qortay meel waxaan ognahay dawlad goboleedyada qaarkood gudiyada loo oo ay soo magacuutiin baraha iyo saxiixa madaxda qaarkeed gobolada ay soo saareen wax ka jira ma jiraan waa ognahay halkaana lagu qoray hay'adahan amniga dhexdooda lagu qoray halkaana laga diray marka de waxaas qofka ku raali noqonaysa ma aha muxuu ahay doorashadii waa diiday ka qayb gali mayna maana doorashada dalkan kama dhici karto sidaan kuma dhici karto dadka Soomaaliyeed shalay xurriyadooda iyo raali aanshooda dadkan mas'uul uga dhigsay ma laga yeelaya maanta waa ku tumanayna saa anagu rabnaan idinka yeelayna iyo meesha inaan iska sii joogaan jiraba ma laga yeelayo jira waay marka madaxweynaha laga yeeli maayo inta kalena asiga uurkiis ku jiraano uuriyaal hooyadii abartiis ku garaysan waaye waxaas wax laga aqrisanaya ma ahniya waan u sheegnay waan u sii sheegaynaa waliba waran wali iyo maxaan ku radaa si asluub la ku sheego waana wali waa loogu sii sheegaya yeyna gaarsiinin dalkan leenahay meel taladu ay faraha ka baxdo waa gartay sidoo kale waxa nagu maqaala ah in magaalada Muqdisho kulamo siyaasadeed aad ku qaban doontaan dhawaan musharaxiin qaar ah dalka ku soo wajahan bal maxay yihiin kulamadaasi xilligan kulamada Cabdilmajiid oo kulamada siyaasadeed waligood dalkan waa ka socdeen inkastoo dawladdaani in badan oo kamid ah aanay rabin inkastoo dawladdaani ay maxaan ku raadayay saaxada siyaasadda ay ciriiriyeysay oo dadkii ay cabsi ku abuurtay oo qof walba shaki ay gelisay laakiin haddana looma dhigdhigaynin oo kulamada siyaasadeed oo nabadda ah oo nabadgelyada ka shaqeeya ay waa socdeen haddana waa socon doonaan waqtiga gaabtay awgees madax badan oo dibadda dalka uga maqneeday way soo galayaan dhawaan marka la isku yimaadana intii isfahmi karto tala ka dhaxayso way tashanaysaa dalkii waa kana halkana lagu sii riixaya war maxaan ka yeelnaa waa la isdhihi doonaa wixii markaas maslaxadda ummadda iyo maslaxadda dalka inay ku jirto iyo dawladnimada loo arkana waa lagu dhaqaaqi doonaa hirticada lagu dhaqaaqa oo la sheegi doonaa insha Allah